kulankani degmada Jawiil ee gobolka Hiiraan ay ku yeesheen mas'uuliyiinta maamulka degmada Jawiil iyo saraakiisha ciidamada booliska gobolka Hiiraan oo hogaaminayo taliyaha qaybta booliska gobolka Hiiraan Korneyl Saaq Al Cabdulle ayna ka mid yihiin taliyaha saldhigga booliska Beledweyne Gaashaan Cabdullaahi Maxamuud ayaa looga hadlayay adkeynta iyo dardargelinta amniga degmada Jawiil iyo deegaanada ku xiran iyo sidii shacab iyo ciidanba looga wada qayb qaadan lahaa halkan kadib xoreynta dalka ee ka socda gobolada kala duwan ee dalka. Mas'uuliyiintan ayaa sidoo kale kormeer ku soo maray wadooyinka waaweyn ee magaalada Jawiil si ay ugu korgalaan xaaladda amni ee degmada. Kulanka iyo kormeerku markuu soo ilaaday kadib ayaa waxaa saxaafadda kula hadlay bartamaha degmada Jawiil gudoomiyaha degmada Jawiil ee gobolka Hiiraan Cabdulqaadir Cabdi Cabdullaahi iyo taliyaha qaybta booliska gobolka Hiiraan Korneyl Saaq Al Cabdulle kuwaas oo si wada jir ah faahfaahin uga bixiyay kulanka amniga degmada Jawiil waxyaabaha looga hadlay iyo waliba kormeerka ay ku sameeyeen wadooyinka iyo xaafadaha magaalada Jawiil ee gobolka Hiiraan. waxayna si wada jir ah u sheegeen in ciidan iyo shacabba reer Jawiil ay heegan u yihiin ka qayb qaadashada halgan kadib xoreynta dalka ee ka socda gobolada kala duwan ee dalka ayaguna bogaadiyay geesiyaasha qaranka iyo kuwa xaqdarka deegaanka ee dagaalka kula jiro haraadiga kooxda qawaarita argagixisada banaansata dhiiga iyo maalka shacbiga Soomaaliyeed. maanta waxaan mahadnoo ah inaan degmada Jawiil ku soo dhaweynay taliyaha qaybta booliska gobolka Hiiraan Korneyl Saaq ujeedkooduna ah korgalida amniga iyo la socodka ciidamada booliska ee federaalka iyo stateka una korgalayeen xaaladda meesha ka jirta taasoo annaguna ka mas'uuliyad ahaan la wadaagnay wixii meesha ka jiray iyo baahiyaha ka jirtay intaba. waxaan kormeer ku nimid deegaano badan oo ka tirsan gobolka Hiiraan khaasatan degmadan aan hadda joogno ee Jawiil iyo deegaanka Ceelgaal intaba waxaan kormeer ku sameeynay qaabka nabadgelyada iyo sugidda amniga maadaama dalku uu ku jiro dagaal waxaan diyaargarayn buuxda ugu jirnaa mar walba ama heegan u nahay sidii aan uga qayb qaadan lahayn ka hortagga iyo difaaca amaba muxuu ahaa dib u xoreynta deegaanada ay cadawgu haystaan. degmada Jawiil waa degmada runtii la dhihi karo waxa way hooyadii halganka muddo dheer ayaan maaragtay anagoo jabhad ah oo xitaa magaalada Beledweyne cadow u haystaan joognay oo ka halgamaynay. maanta dadka reer Jawiil waxay diyaar u yihiin inay halganka ka qayb qaataan shacabkooda iyo ciidanka jooga intaba. waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa gudoomiyaha degmada oo garabkayga taagan taliyaha saldhigga degmada iyo dhammaan odayaasha waxgaradka degmada Jawiil waxaan leeyahay aad bay u mahadsan yihiin sida ay mar walba diyaar ugu yihiin inay ka qayb qaataan dib u xoreynta iyo maaragtay difaaca dalka iyo deegaanada ay joogaan intaba. marka waxaan leenahay walaalayaal soo dhawaada dadka reer Hiiraan waxaan leenahay waxay ku jiraan dagaal ay ku jiraan deegaano badan oo Hiiraan ka tirsan ayaa habeen iyo maalin waxay ka socotaa xabad. waxaan leenahay kuwa dagaalka ku jirana garabkiina taagannahay inta aan hadda dagaalka ku jirana waxaan leenahay diyaar garow buuxa la galo sidii loogu qayb qaadan lahaa dib u xoreynta dalka iyo difaaca dalka inta loogu qayb qaadan lahaa. aan leenahay cadawgu wuu jabaya insha Allah tacaala. Hiiraanna waxay sumad ku tahay la dagaalanka argagixisada sumad ku tahay xaqiiqatan markii laga hadlayo waana la ogyahay dadka Soomaaliyeed way og yihiin. waxaan diyaar u nahay mar kasta inaan cadawga dalkanaga iyo deegaanada aan maaragtay xukuna oo gobolka Hiiraan iyo Hirshabelle intaba aan ka xoreyno. waxaan diyaarinay ciidamada meel kasta oo joogaan ciidanka booliska gobolka Hiiraan meel kasta oo joogo. waxaan hore u tagnay Maxaas iyo Muquri muxuu ahaa Buulaburte muxuu ahaa haddan waxaan joognaa Jawiil aan joognaa degmooyin kale iyo deegaano kale waa tagi doonaa intaba. waxaan leenahay cadawga loo diyaar garoobo sidii la isaga difaaci jiray ama loola dagaalami jiray inay ula dagaalamaan ayaan ka rajaynaynaa insha Allah tacaala. dadka deegaanka runtii oo reer Hiiraan waliba bariga Hiiraan oo habeen iyo maalin aan ognahay waxay cadawga ka goynayaan ayaga waxaan leenahay waa idin garab taaganahay sida idin garab taaganahay adinkana kiini dhinta waa ahlu janna kii dhaawacmana waxaan leenahay ilaahay baa u boogadhayay insha Allah tacaala. dawladeeda iyo ummadoodana way garab taagan tahay kuwa difaaca ku jirana waxaan leenahay xornimo iyo go'aannimo sid ugu noolaan jirteen ugu noolaada. Maxamed Xasan Alkacase warbaahinta qaranka degmada Jawiil gobolka Hiiraan.